Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal kulanti aboon oo wanaagsan ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay xaaladda Ethiopia sida laga warqabo galbeedka gobolka City waxa ka soo barakacay dad aad u tiro badan oo ka kala yimiday magaalooyinkii Garbaciise iyo dadkii halkaas lagu xasuuqay shacabkii ka haray ku sugan yihiin magaalada Mulli isla markaasina ay xaalad nololeed ay aad u la ildaran yihiin isla markaasina waxay sheegeen qaar kamid oo nolol soo xir in la iloobay oo wax raashin aan la siin muddo laga joogo 2 bilood waxaana ay sheegayaan in noloshooda dhaqan-dhaqaale aad u liidato isla markaasina dadkaasi ay u baahan yihiin in gargaar loo fidiyo iyadoo guud ahaan barakacayaasha ka yimid galbeedka gobolka City ay ku daadsan yihiin tuulooyinka iyo degmooyinka galbeedka ku yaala sida degmada Afdam, degmada Biki, degmada Erer iyo tuulooyinka hoos yimaada sida Casbuli isla markaasina ay jiraan dhibaatooyin dhinaca nolosha maadaama ayna waqti xaadirkii iyo waqtiyadii u dambeeyay dadkaasi aan la gaarsiin wax raashin ah oo ka yimid deegaanka iyo qurbo joogtaba isku wada geeyo shacabkan ayaa waxay la ildareeyeen dhibaatooyin fara badan oo dhanka nolosha dhaqan-dhaqaale waxayna baaq u dirayaan xukuumadda deegaanka iyo shacabkan dadkay ka soo jeedeen ee qurbo joogta in shacabkaasi lala gaadho gurmad oo xagga nolosha laga taageero inta loo xoreynayo dhulkooda waa qaar kamid ah barakacayaasha ku sugan degmada ma ay soo gaar ahaan Mulli iyo sidoo kale tuulooyinka fogfog magaalada Biki ee degmadaasi Biki ee ku taala galbeedka gobolka City oo magaalo caan ah oo dad aad u tiro badan ay ku nool yihiin isla markaasina kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dad aad u tiro badan ay ku nool yihiin suuq iyo sidoo kale zamxad aad u badan ay ku yaalin horumar ballaaran sanooyinkii u dambeeyay ku talaabsanaysay taasoo ay ka taalo sidoo kale zaylada xoolaha iyo suuqa maalinka salaasada la isku yimaado waxaanu kula kulanay wiil Mucjiso oo ku nool magaaladaasi oo awood u leh inuu qaado oo ilkaha ku qaado cotton kilogram oo sonkora ama kintal sokora oo afkiisa ama ilkiisa ku qaado meel kastana uu ku gooyo wiilkaasi waa wiil aad Mucjiso u leh isla markaasina awood u leh sidoo kale inuu shirikaan iyo wax aad tankiisu u weyn yahay uu ilkiisa ku qaadayo ayaa kamida waxyaalihii ugu la yaabka badnaa ee halkaas kula kulanay inkasta oo aynan fursad u helin inaan wareysi ka soo qaadno wiilkaasi isla markaasina xilliyada dambe wareysi ka qaadi doono ayaa waxa wiilkan kamid yahay dadka waxyaalaha ugu muujisada badan ee uu sameeyo kamida inuu ilkiisa ku qaadayo tan aad u weyn isla markaasina wax ka caawinayo jirin wiilkaasi dhalinyarada ayaa waxa uu sidoo kale ka shaqeystaa shaqooyinka darawalnimada isla markaasina waxa ku nool magaaladaasi Biki waa wiilkaasi dhalinyarada ee ilkaha ku qaadaya 50 kilogram ee sonkorta ama bariiska ama wax kastaba waa waxyaalaha hibooyinka ee gaarka loo leeyahay Ilaahay siiyo la socotay qodobka ugu dambeeyay waxa kamid ah ciidamada difaaca qaranka ee dawladda dimuqraadiga federaalka Ethiopia ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanada Burka iyo Jifra iyo buuraha ku xiran deegaanada Bati Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ana baabulaha ciidamada difaaca qaranka oo hogaaminaya dhammaan ciidamada difaaca hawlgallada ka wada sharci ku soo dabaalida ay wadaan jiida hore ee canfarta sidoo kalena fulinaya ballanqaadkii uu sameeyay shacabweynaha Ethiopia ee ahaa in hawlgalka dagaalka galaya ay gacan ku haynta labada goobood dib uga soo celiyaan cadawgii haystay ee ku soo duulay taas oo la mid ahna iyagoo ka duulaya go'aankii ra'iisul wasaaraha qaatay ayaa ciidanka geesiyaasha waxay xoreeyeen kooxda TPLF maanta Kasatika xilli lagu jiray dagaalkii Bati Kasatika waxa ayna ku siisiqayaan maanta aaga Burqa iyo buuraha ku xiran ee Bati iyo Kombolcha waqti xaadirkana gabi ahaanba gacanta ayay ku soo cesheen ciidamada difaaca qaranku ugu dambeyntiina ciidamada difaaca qaranka ayaa waqti xaadirkan hore u sii baacsanaya TPLF sida ay sheegeen xogtan oo laga soo xigtay xafiiska adeega warfaafinta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia